Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qofka aan ka hadli doono maanta waxaa lagu magacaabaa Elizabeth Ann Duncan. Waxay dhalatay sanadkii 1904 waxayna ku dhalatay Mareykanka. Elizabeth waxay ahayd haweeney rag badan guursatay, xataa waxaa lagu sheegaa inay gaareen ragga ay guursatay 20 nin. Sidaas darteed waxay dhashay carruur badan, laakiin cunuga ay goonida u daba joogtay oo u jecleed waxaa lagu magacaabaa Frank Duncan. Frank Duncan wuxuu la noolaa hooyadiis, waxayna ahayd islaantaas sidoo kale islaan safar badan oo meelo badan oo Mareykanka tagtay. laakiin sanadkii 1956 waxay degtay iyada iyo wiilkeeda Santa Barbara meel lagu magacaabo oo ku taalo gobolka California. Halkaas ayuuna ka bilaabay Frank shaqadiisuna waxay ahayd looyarnimo. Elizabeth waxay cabsi ka qabi jirtay in maalin maalmaha ka mid ah Frank uu ka tagi doono ama ha guursado ama isagu goonidiisa u dego. Sidaas darteed Frank meel kasta uu tago waa u daba joogi jirtay. Kiisaska maxkamadda uu qabanayo waa u raaci jirtay, sidoo kale marmarka qaar maxkamadda ayay kaga sii hormari jirtay. iyagoo noloshoodu sida ay iska tahay oo caadi isaga degan tahay. Maalmaha ka mid ah Frank saaxiibihiis waxay kula taliyeen inuu guursado maadaama uu nin weyn noqday, guriga hooyadiisna uu ka tago. Wuxuu qaatay taladoodii. Frank hooyadiis ayuu u tagay, arrinkaas ayuu u sheegay. Islaantii waa ka naxday arrinkii, waa is-ooyinsiiday, kadibna qolkeeda ay isku soo xirtay, waxayna cabtay kaniiniyo ama waa ay cuntay dhowr xabo oo badan oo kaniiniga lagu seexda ah, taasoo keentay inay xanuunsato oo cisbitaalka loo qaado. Waxay doonayday inay isdisho, laakiin uma aysan suurtagelin. Elizabeth mushkiladeeda oo dhan halkan ayay ka bilaaban doontaa. Halkan ayayna ka bilaaban doontaa sheekada nolosheeda oo dhan dabagedin doonta. Elizabeth intay cisbitaalka ku jirtay waxaa kalkaaliso u ahayd gabar lagu magacaabo Olga Copsey. Halkaasna waxaa isku bartay Olga iyo wiilkeeda Frank. Elizabeth iyadu waa ay dareentay in wiilkeeda iyo Olga uu xiriir ka dhexeeyo. Sidaas darteed dhowr jeer ayay ku tiri Olga wiilkeyga ka har, laakiin Olga sidaas kagama aanay harin Frank. Maalmaha ka mid ah weliba waxay ku tiri Olga, Elizabeth aniga iyo wiilkaaga waan isguursanaynaa. Laakiin Elizabeth waxay ku tiri intii arrinkaas uusan dhicin ayaan ku dili doonaa. Olga iyadu hanjabaadaasi arrinkaas uma joojin. 20kii July 1958 ayayna si rasmi ah isku guursadeen Olga iyo Frank, laakiin arooskooda duqda waa laga qarinayay. Si ay ku ogaataba waa ay soo ogaatay, waxayna ku guuleysatay inay wiilkeeda ka soo wadato Olga oo gurigeeda kula noolaado. Wuxuu sameyn jiray marka Frank guriga ayuu hooyadiis kula noolaa jiray, laakiin islaantiisana meel kale ayuu dejiyay si dhuumasho ayuuna kula kulmi jiray oo duqda laga qarinayo. Maalmaha ka mid ah Frank wuxuu la kulmiyay xaaskiisa oo si qarsoodi ah, laakiin miskiinka wuxuusan ogeyn in hooyadiis ay daba joogto. Markii uu guriga galana guriga ay ka soo daba garaacday, waxaana dhexmaray khilaaf iyada iyo xaaskiisa, waxayna ku guuleysatay inay wiilkeeda soo wadato. Arrinkaas darteed Frank wuxuu ku qasbanaaday inuu guriga ka guuro oo islaantiisa meel kala dejiyo. Islaantaanuna waa ay daba joogi jirtay mar walba meel kasta oo ay degaan, waxayna ku qasbanaadeen inay dhowr guri bedelaan sanadkii ugu horreeyay ee guurkooda. Elizabeth dhankeeda iyada inay kala wado Frank iyo xaaskiisa kuma aanay filayn. Waxay doonayday inay arrinka soo gabagabeedo. Waxay doonayday inay Olga ka takhalusto oo ay iyada dhanba ka nasato oo ay disho. Sidaas darteed waxay raadiday qof ay lacag siido oo ka takhalusa. Waxay la kulantay islaan ay saaxiib ahaayeen oo lagu magacaabo Barbara Reed. waxayna u soo bandhigtay inay disho. Weliba xataa waxay ku tiri Olga waxay wadataa uur ayay leedahay oo nin kale ay uur u leedahay. Waxay doonaysaa wiilkeyga inay ku nabto oo ay dusha ka saarto. Lacag ayaan ku siinayaa ila dil. Laakiin Barbara Reed waxay ku dhahday waan soo fikirayaa u kaadi. Laakiin kama aanay soo fikirin, waxay la socodsiiday Frank oo waxay ku tiri hooyada waxay doonaysaa inay xaaskaaga disho ee xal u raadi. Frank markii uu ogaaday arrinkaas si hooyadiis aysan u sameyn balaayada ay madaxa ku haydo, wuxuu ka raray xaaskiisii meeshii ay deganeed, isaguna wuxuu la joogay hooyadiis oo dhudhumashadii ayaan ayuu iska daayay. Sidoo kale waxay isku dayday Elizabeth mar kale iyadoo la heshiiday nin lagu magacaabo Ralph Winterstein inay iska dhigaan iyada iyo Ralph Olga iyo wiilkeeda. Frank ayuu iska dhigay Ralph, iyadana waxay iska dhigtay Olga. Waxay tageen maxkamad. Ralph oo ah Frankiga bugtaana wuxuu ku yiri garsooraha Olga ma doonaysa inay ila noolaato, laakiin Olga ma ahay waa islaantii Elizabeth ahayd oo Olga iska dhigaydo. Sidaas darteed waxaan doonaynaa inaan kala tagno oo isfurno. Arrinkaas waa u socday oo warqad ayay ka soo heleen maxkamadda oo furiin ah, laakiin arrinkaas kuma aysan filaan inay kala wado Frank iyo Olga. Laakiin waxaa kaaga siiyaa badan sidoo garsooruhu kaga yeelay inay tahay Olga. Sababtoo Olga waxay ahayd 30 jir, iyaduna xilligaas waxay ahayd 54 jir. Waxaa laga yaabaa inay hoos kaga dhiibtay. Muddo kadib waxay heshay wixii ay doonayday. Waxay heshay 2 qof oo diyaar u ah inay dilaan Olga lacagna ay qaataan. Labadaas qof waxaa lagu kala magacaabi jiray Louis Moya iyo Augustine Baldonado. Labadaani waxay kula heshiiday inay lacag $6,000 ka qaataan, Olgana ay ka takhalusaan. Isla markii iyaguna waxay bilaabeen inay qorsheeyaan sidii ku dil lahaayeen Olga. Waxay qorsheeyeen inay afduubtaan kadibna ay geeyaan xuduudda, halkaasna ay ku dilaan kuna aasaan. 17kii November sanadkii 1958
waxaa guriga Olga usoo gargaraacay ninka lagu magacaabo Luis Moya. Wuxuu ku yiri waxaa ila socda Frank, baabuur hoos yaala ayuuna saaran yahay, qamra ayuuna ka dhargay oo waa uu sarqaansan yahay. Waxaan rabaa inaan soo degto oo caawido oo kor ila soo saarto, keligay ma soo saari karo. Kii kale ee lagu magacaabayay Augustina baabuurkii ayuu fariistay kursiga dambe, kadibna mara ayuu isku duubay isagoo iska dhigaya inuu yahay Frank. Olga markii ay baabuurka timid oo daaqada la furay, madaxa ayuu Luis wax kaga dhuftay, halka dhanka kale ninkan lagu magacaabo Augustina uu gudaha u soo jiiday oo baabuurka gudihiisa u geliyay. Waxay bilaabeen kadib inay madaxa wax kala dhacaan iyo inay ceejiyaan ilaa miirka uu ka tagay. Baabuurka ayay dhaqaajiyeen iyagoo xuduudda ku sii jeeda, laakiin nasiib xumadooda baabuurkii ayaa intay dhex sii socdeen ka halaabay. Waxay sameeyeen marka inay Olga soo dejiyeen ayay taag yar oo meel ka taagan dhabarkiisa geeyeen, halkaas ayayna ku ceejiyeen, halkaas ayayna ku aaseen. Markii ay soo laabteen waxay waceen Elizabeth, waxayna ku yiraahdeen arrinkii waan fulinay, waxaan kaa doonaynaa lacagteennii. Laakiin Elizabeth waxay siiday jeeg $150, shaydaannimo iyo baqiilnimo isku darsatay. Waxayna ku tiri labadan nin haddeer kama soo saari karo bangiga lacagtaas tirada badan, sababtoo ah waxaan ka cabsanaa in layga shakiyo oo boolisku waxay bilaabeen baaritaan halkii ay ka baxday Olga oo Olga ayaa la baaraya. Sidaas darteed dib ayaa idinka siin doonaa. Muddo kadibna waxay siiday $1,000, kun kale oo dollar ay u soo saartay. Laakiin Frank wuxuu arkay in hooyadiis bariyahan lacag badan ay isticmaalaydo. Markii uu weydiiyay arrinka oo lacagtan xagaageeda, waxay ku tiri waxaa jira qof ii dhaaranayo oo lacag iga rabo, anigana waxba kuma samayn karo, sidaas darteed ayaan lacagta siiyaa. Islaanta mashaakil kale ay bilowday. Isla markiiba Frank wuxuu la xiriiray booliska oo arrinka u sheegay. Iyaguna waxay soo qabteen Luis iyo Augustine. Markii ay baaritaan ku sameeyeen labadan nin, isla markiiba waxay qirteen inay iyagu dileen Olga iyo in Elizabeth ay lacag ku siinaysay inay dilaan Olga. Sidoo kalena waxay tuseen booliska halkii ay ku aaseen Olga. Markii baaritaan lagu sameeyay oo dhakhtarku uu baarana, waxaa caddaatay in Olga aanay dhiman markii ay aasayeen aasitaanka markii aaseen kadib ay dhimatay, iyadoo noolna ay aaseen. Iyagu waxay moodeen inay dhimatay, laakiin waa ay nooleed oo miirka kaliya ayaa ka tagsanaa. Isla markiiba waxaa la soo qabtay Elizabeth, waxaana lagu eedeeyay dilka Olga. Markii baaritaan lagu sameeyay iyada iyo labadan ninna waxaa ku caddaatay inay ka dambeeyeen dilka Olga, laakiin iyadu waa ay diiday oo wax lagu kuma lahayn ayay tiri. Waxaase kaaga siiyaa badan wiilkeeda Frank wuxuu difaacayay hooyadiis maxkamadda markii la joogay, oo looyarka ay qabsatay ama qareenka ay qabsatay wuxuu ahaa wiilkeeda. Laakiin wiilkeedu waxba uma tarin oo waxaa lagu xukumay dil iyada iyo labadii nin. 8 Agoosto sanadkii 1962 ayaana lagu fuliyay xukunkoodii oo la dilay Olga iyo labadii nin. Qisadii maanta halkan ayay ku dhamaatay. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo soo boqo channelka halmaamin inaad subscribe garayda, like waa muhiim. Sidoo kale waxaan rabaa asxaabta inaan idin ogeysiiyo waxaan sameeyay page Facebook horena oo u samaysnaa, laakiin hadda waxaan rabaa inaan dib u kiciyo. Waxaan rabaa inaad soo boqotaan, waxaa ku qoran magacan oo xog ogow leh ku qoran. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah.